السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا يوتيوب شانلك هدي هذا كان قصون تاي سبسكرايب نصار إن عن كذا دونتا وحاس لقبه أرسنال إيو مع ريال مدريد إن تعملها إيو بيان مونيك مركا ولوقت هوري وحال جوجا جرونغ إميريت ستاديوم أي كعيارين إن كهذا ريال مدريد إيو أرسنال Alliance Arena sidoo kalena waxaa ka socda game weyn Inter Milan iyo waxaa ka socdo Bayern Munich haddii ka hadalno aan ku dheeraano ciyaarta Arsenal iyo Real Madrid iyo Arsenal waxaan ogaanay in maaragtay Real Madrid ay risk ku jirto waxay risk ugu jirtaa player'in badan haddii ay yellow la siiyo aabahayaan waxaa kamid ah player'inta ayaka waxaa kamid Vinicius Junior Luka Modric Antonio Rudiger Camavinga Endrick Lucas Vazquez waxaa waaye lixdaas ciyaarayaan haddii qaataan kaarka jaalaha oo ay baxayaan gameta ee Bernabeu lagu ciyaara ma dheli doonaan sidoo kale Ancelotti asaga taadiis qaata waa la sideline gareynaya he'll be sideline alay marka game ugu dambeysay ay ciyaaraan Real Madrid iyo Arsenal waxaa badi 2-6 yaa la joogay waa marka ay Arsenal tagtay finalka oo lagu qaraacay finalka ay kooxda Barcelona ay qaaday Champions League waxaa joogay meeshaas team oo waxaa waaye Emirates Stadium laga bilaabo san camal first waxa lagu dheelay Highbury markay Arsenal waxay isticmaali jirtay garoonka Highbury lagu soo ciyaaray Highbury 0-0 ku soo dhamaatay waxaa laaday Bernabeu magaalada waxay ku soo dhamaatay iyadana 1-0 Thierry Henry xiri line-up kala fiiriyeen sidaan camal hadda Arsenal line-up-keeda saas squad-keeda daciif u yahay as waqtiga aydan daciif waay marka dadkan kooxdan Arsenal waxa waaye waa teamkada saadash la siinay waxa saadash loo siinhayaa history-ga iyo dhanka difaacshadeeda ku ficanta oo ay ka maqan yihiin difaaciya Calafiori Tomiyasu aw mar hore sii maqnaay iyo maxaa ku dhahaa Gabriel Magalhaes oo asagana rest of season maalin dhow taari dan sidaas loo siinaya saadaashu ku badan haddana history haddii la fiiriyo sidoo kale Real Madrid tamkor idoo haysata Ronaldo weyne R9 Ronaldo Fenomeno haysato Guti haysato Zidane Sergio Ramos oo magayda xariif yar oo maxaa ku dhahaa laacib weyn ku dheerahay Beckham ku dheerahay Roberto Carlos maaragtay laga dhaxbaxay oo ka dhaxbaxay Emery Lampard iyo maxaa ku dhahaa Thierry Henry iyo maxaa waaye iyo waxa ka dhaxbaxay Thierry Henry Lampard Reyes iyo difaaci yar oo squad-ka ugu jiro oo portaha ugu jiro Lehmann ay adinkaadna Champions League as maqashid waxa lagu soo xasuustaa Cristiano Ronaldo legend weynay oo u soo ciyaaray kooxda Juventus Manchester United iyo Real Madrid ninkaas maylo ka tid inaas yahay ninkii wacdala ka dhigay Champions League oo loo yaqaan the King of Champions League waa ninkii ugu goolasho badan oo qabo 140 goals waa ninkii ugu assist badan dhanka caawitaanka ugu badan oo qaba 42 assist waa ninka kale oo qaba single UCL game halka game camal oo la ciyaaray halka season ku daa waa one single season as qaba 17 goals wax kale oo sameeyay cid kale oo sameeyay malahan oo Cristiano Ronaldo ahayn waa ninka qaba knockout stages magala joogo waqtiga ka dambeeyay round of 16 ilaa kay final ku magala joogo waa ninka ugu goals ugu badan oo kaliya sameeyay waxa waaye 67 as qaba haddana waxa waaye ninka ugu quarter final magala joogo hadda round 8 camal wareegga 8aad oo hadda la dheelahayo waa ninka ugu badan oo qaba 23 goals as xiri iyo la dheelahayo wareegga 8aad waa ninka ugu badan haddana semi finalka magala joogo waa ninka ugu goalska badan oo xiri 13 waa ninka finalka ugu goals badan haddana oo xiri 4 goal oo Champions League final asqaba waa ninka haddana maylo kartid inaas yahay ninka qaaday 3 UCL final oo xiriir oo ma 3
waa ninka xeri 3 UCL final different ah 28 waa xeri 2014 waa xeri 2017 waa xeri waa saddex final oo different ah xeri askal xeri 2018 28 2014 saddex final oo Champions League 28 2014 iyo 2017 28 waxaa soo xeri kooxda Manchester United 2014 iyo 17 waxaa soo xeri Real Madrid kooxda Manchester United maga xiray 28 waxaa ka xiray kooxda Chelsea maga qaabka waxa ku guuleystay Manchester United ma ilaawi kartid haddana inaas yahay ilaawi kartid inaas yahay ciyaaryahanka qaaday inaas ka mid yahay 5 UEFA Champions League ma ilaawi kartid haddana inaas yahay most consecutive UCL away games si ka badan oo la xiray inaas ka mid yahay oo kooxda cidda maska maqan tahay cidda kale isku soo xirtay consecutive oo xiriirtay 11 game oo xiriirtaas gool soo xiray ma ilaawi kartid inaas yahay halka ninka oo 10 gool iyo ka badan u gool qaba 3 koox saddexda kooxaha Manchester United 10 gool iyo ka badan soo xiray oo Champions League dheelay Real Madrid 10 gool iyo ka badan u xiray asagana oo Champions League dheelay hal mar ma in badan iska sameeyay Real Madrid Juventus sida camal asagana waxa waay waa 10 gool ee ka badan u xiray oo soo dheeray Juventus waa halka ninka oo sida sameey haddana waxa waay ma ilaawi kartid haddana inaa sida yahay halka playerka oo qaaday 7 jeer top scorer Champions League 7 jeer cid kale oo sida sameeysan ma laha ma ilaawi kartid inaas yahay halka player oo maaragtay boqol maaragtay guul ay la soo hoyatay usoo dheerahay inta soo dhamaala aan soo sheegaynay maanta dhan wax cid sameeysan ma lahan aan ka ahayn Cristiano Ronaldo the king of Champions League Ronaldo waxa waay wax badan history badan soo sameeyay oo inta Champions League kale ahayn intaas wax soo sameeyay waysi dadku weynaa Ronaldo maxaan ku dhahaa R9 ka soo sameeyay way Messi sameeyay la waxaa soo sameeyay Kaká oo muddi weyneed haddii aan ka hadalna isku darka squadka uga adag Champions League maxaan ku dhahaa ciyaartan Arsenal iyo Real Madrid isku dar squadkooda haddii ka hadalna waxaa ugu balaarin badan ay kasoo baxayaan kooxda Real Madrid oo ay kasoo baxayaan 4 5 6 ay kasoo baxayaan 6 ciyaaryahan Arsenal ay kasoo baxayaan 5 ciyaaryahan waxaa la dhigayaa in ay 2-3 ay ku jiraan Timber iyo Luis Skelly 4-5 ay joogaan Saliba iyo Rudiger 6 Declan Rice loo geli labada kalena oo dhexda gashay Valverde iyo Bellingham labada baal la kala geliyay Saka iyo Vinicius Junior lamba 9na striker loo geli dhanka kale Antonio Griezmann oo ciyaaryahanka u ciyaara France oo dheela kooxda Atletico Madrid ayay maanta saddexdiisa cunug ay yihiin ay maanta tahay dhalashadooda waxa waaye saddexda cunug oo Griezmann maanta oo la joogo bisha taariikh 8 ay tahay taariikh 8 hore 2016 taariikh 8 April waxaa dhashay gabar oo dhalatay taariikh 8 April 2019 waxaa u dhashay gabar oo dhalatay taariikh 8 April 2021 waxaa u dhashay wiil marka cawad waxay noqon doontaa BC Night ay u noqon doontaa Antonio Griezmann oo Champions League miyaas daawana saddex cunug miyaas u dhalaa soo dhigaya xaflad dhalitaan miyaas u dhigaya saddexdiisa cunug Champions League miyaas ku mashquula iyo cawad haddana ay sii jiraan laba ciyaaryahan oo waaweyn oo lagu kala dheeraa garoomaha Alliance Arena iyo Emirates Stadium haddii aan ka hadalna ninka Gyökeres ahay waa shaqalaynayaa in xali waxaas xiray gool oo laga diiday goolka kale isku xiray 3 daqiiqo ninka Gyökeres ahay taankan saamarkaana waxa waay suuqaas yeelaa waxaa lagu qaadan karaa 70 milyan ama 65 milyan kooxo badan aan raba ay ka mid yihiin Arsenal ay ka mid tahay iyo kooxda kale oo listiga ay kan ku jiro saaxiib yaal sidaas iyo nabadgelyo waxaan idinkugu dari lahay maanta ka dambe waxaan soo dhigi doonaa ciyaaryahan newska habeen kasta markii la joogo habeenka la joogo 3 saac oo habeenimo waxaan soo dhigi doonaa ciyaaryahan newska historyga oo hore soo dhacay
ilaa ka wixii hadda cusubun kulli waan soo dhigi doonaa insha allah. haddii aad channelka cusub tahayna subscribe